عقاشة قبلها صحافة يدوينها شرفت لهم ماشي سويه دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام دخل باكم مقدمان تماشان خير كاس للسوء بابلي إن له هرجليه أو هرجله أو سودو كهرجلي لها أو هالكا أو تاجن يهاي خير كهر الله سوادي لها كل يوم بأمانة إنه إج وحيد من لها وادنتين عنان ملها ملكمود بوقت جا أصارنا ماشى إنه كل انتوا وقت جاس دات كانوا نهدي أرتب بلو جبا ما بيسوي من كران بلو جبا سما من كران لا يأي سفي عن بغض الله وذا قلدتكم ما سما من كران ما قرنا يسببته وواحد كسر عدوي يبان تلاقي هاي أنت يدا أو نبضة أو عقاس وقاتين لبضة بيلود با أو دولة iyo dhaqanka iyo dadka dhan soo jeediyo xabad joojinta afarta qodob ah afarta qodob oo la wada qaatay inaynu daadajino oo ku shaqeyno oo si degdeg loogu shaqeeyo habeenimo maalinba usbuucan soo socda sidaas bay ugu macaan tahay aan leeyahay nabaduna way ku hagaagaysaa hoos in loo dhaadhiciyo oo cuqaasha la gelinsiiyo oo ninka qoriga haysta ee jiida jooga la gelinsiiyo loo sheego in nabadda la qaatay wixii kaleba wixii kala sharihiba waa gaadhaan markiiba isagoo godka ku jira ama dhufayska ku jira in nabadda la gaadhay oo la heshiiyay oo gacmaha la isqabsaday oo wixii la soo dhaweeyayna way saxaafadu gaadhaa waa in la joojiyaa dhibaatooyinka hadallada aan maaragtay saxda ahayn meediyada la isu marinayo la isu duubayo la tuurayo oo colaada dhalinaya dadku inay si sahal ah u noqdaan dad tala ku dhiiglayaal ah oo maxaa la yiraahdaa jeeb ku dhiiglayaal ah oo maxaa la yiraahdaa go'aanada ay soo qaataan dhiig isu bedelo markiiba inay noqdaan ma aha culimadii waa ka hadleen labadii sheekh ugu horeeyay baa ka hadlay waxa laga hadlay in dhibaatada ay leedahay qofku inuu isagoo aan sogaynba hadduu xitaa ninka odayga ah arinta adkeeyo oo yiraahdo sidaa yeeli maayo oo lagu kala kaco fidma ku dhalato oo dad lagu laayo gacan ku dhiig la weeyo wallahi gurigiisa iyo isaga iyo caruurtiisa iyo naagtiisa wixii dhan bay galasay meel inay ka aaday marka waxaan leeyahay aynu isugu tagno hawshaasi waxaad moodaa inay soo jeesatay nabadeedii ay maaragtay ama waaba soo jeesatayba waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa dadku waa dhibaataysan yahay markaad martaan dhulkaan martaan ama dhulka la isku dilay ama sideedaba abaar baa jirta aad iyo aad u daran oo dadkii xooluhu waa liitaan xanuun baa jira colaadii baa ugu darsantay ummaddu waa tabcaan waa iska ciiraysaa ummaddu waa iska ciiraysaa qorgu bay kaabka ku dhagayaan xaqaas isaga jeedina barraftaas ka siin iyagu naftu bahayso oo aad soronaysidka kan waa dhimanayaaba marka waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryayaa hawsha inuu nabad ku soo dabaalo ilaahay waxaan ka baryayaa in hawsha iyo guushaas aynu gaadhno dawladda iyo madaxweyne ku xigeenka ama hay'adaha madaxweynaha ee ka shaqeeyay hawsha tan shalay markii naloo sheegay xalay habeen barkaan halka ka tagnay inay waxaan inoo hagaagaan hawshaasi oo aanu beesha iyo raaska hawshan dhigay aanu maaragtay ku gacan siinay sidii waxa u hagaagi lahaayeen oo la isugu iman lahaa gogashan quruxda badan waxaan uga baxayaa garaad Salabaan garaad Maxamed uu xanuunsan yahay aad iyo aad baan u jeclaan lahaa inaan nabadan kelmad ka yiraahdo buu yiri ma iman karo hal iga gaarsiiyo inaan idmiciina ahay salaana hal iga gaarsiiyo nabadana qaybtiisa kaga jira isaga iyo sima kala wada xanuunsan oo magaalada jooga oo Suldaan Buurtin la kamid yahay oo kamid yahay Boqor Cabdullaahi kulli wax yaraan waa soo wada gaari weynaa hana lagu salaamo hawshan